السلام عليكم سو دوادا maanta waxaan sameynaynaa qumbe hadda intaa miiska yaalaad u baahan tahay marka daawasho wacan waxaad u baahan tahay 1 kilo sonkor ah 1 litir oo caano ah kan waa 2 litir laakiin half kadan isticmaalaynaa 300 gram oo kokos ah qumbe waxay u dhigantaa 3 bakeeri buskutka saaska oo simple ah butter oo cusbo la'aan suugo cusbo la'aan oo 250 gram waxay u dhigantaa 1 bakeeri iyo bakeeri marka 4 qaybood loo qaybiyay iyo heel waan shiidaynaa hadhow marka waxaad ku bilaabaysaa inaad sonkorta iyo caanaha hal digsi ku ridid sonkorta waa 1 kilo caanahana waa 1 litir kanna waa 200 mililiter marka waa inaan halfkeeda ku shubo intaas oo kale waaye halfkeeda ku shubay waad isku laaqaysaa dabkaad saaraysaa ilaa ay si fiican u karsanto waxaan ka ogaanay inay si fiican u karsantay markay degdeg ay noqoto kadib waxaad soo qabsanaysaa digsi kaya subaga aad ku ridaysaa waxaan dabkaad saaraysaa ilaa uu colorka waxyali ka bedelo oo soo carfo sonkortii aad dabka saartay waxaad iska ilaalisaa markay karsamayaan waxaa dhici karta in caanaha dabka kasoo daadato markay waxaas dhacdo dabka gaabi oo walaaq subaga markay sidaan u ekaato ayaa dabka ka diminaysaa hadda 20 daqiiqo kadib waxaad xataa ka garanaysaa inuu si kala noqday degdeg camal oo egyahay saxan yar aad saas ku shubaysaa wax in aad u yar sidaad u fiirsid inuu degdeg yahay marka gacmaha saas aad dhehaysaa sidaad u garatid inuu ready yahay saas hadday tahay waxaad ku shubaysaa kokoska waxaad ku shubaysaa 300 gram ama 3 bakeeri kokos qumbe ridinaysaa qumbihii si fiican u walaaqaysaa waa inaad kor taagnaatid
maadaama adig kale digsiga hoostiisii ku dhigaysaa. Ilaa walaaqaysaa ilaa ay reeb ka noqoto. Kadib waxaad ku ridaysaa heelkii iyo buskudkii aan shiidnay. waxaan ugu dambaysiinaysaa bararkii aad dabka saartay. buskudkii iyo heelkii aad ku daraysaa. kadib waxaad ku ridaysaa subagii. waxaadna sii diyaarsanaysaa parchment paper sidaad hadda ku korshitid. marka kanaan isticmaalnaa sidaan u kala bixino. farahaaga laakiin iska ilaali maadaama aad kuleel u tahay. هذا waan jarjaraynaa. waa mahadsantihiin. waa inoo fiidiyowga dambe insha Allah.